شجرة uu ku qabtay magaalada Nairobi gudoomiye ku-xigeenka ururka Raas Kamboni Maxamed Ibrahim Maxamuud ayaa waxa uu codsaday in kaalinta uu ku leeyahay ururkiisa dagaalada ka socda gobolada Jubbooyinka mid la mid ah laga siiyo talada dalka Soomaaliya waa kan gudoomiye ku-xigeenka ururka Raas Kamboni Maxamed Ibrahim oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan horta soo jeedinaynaa waxaan u baahanahay inaan ka qayb qaadano miisaanka aan ku leenahay dibka mid la mid ah talada ku yeelano haddaan hadda talada wax ka iftiimiyo aan isleenahay haddaad ku jirtaan waxbaad yaad ku siyaadin lahaydeen haddaan aan dib u yara fiiriyo jadwal baa hadda caalamku dejiyay August baa la yidhi barnaamijka Soomaaliya ee ku meel gaadhka August buu ku egyahay August hadda meel ma jirto waa geedkan dhinaciisa taagantaa jadwalku suu degsanaayo meelihii la mirahayo dhanna lama marin oo waad ogtihiin salaadiintii asaaska oo ahayd iyo ugaasiyadii ayagiiba dhexdooda wax ka taagan lama xalin ergada ayaga keeni lahaa ergada xal laga ma gaarin baarlamaankii lama gaarin oosna waatan waxa soo dhan waxaan isleenahay haddii talada waxna laga siin lahaa waxbaan ka tilmaami lahayn waxna waan ku siyaadin lahayn haddana waxaan diyaar u nahay waxna diyaar baan u nahay waxna waxaan rabnaa cidii hawsha wada inaan dareensiino waxaan diyaar u nahay inaan barnaamijkaas nabadeynta inaan qayb weyn ka qaadano waxaan rabnaa inaan dareensiino cidii hawsha ku mashquulsan in qayb muhiim ah oo wax ku siyaadin leedahay ka maqan tahay marka in dib loo eego waxaan codsanaynaa ururadan roadmanka lagu mideeyay ee saxiixa inaan qayb ka noqdo waxaan aaminsanahay inaan mudnaanta leenahay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururka Raas Kamboni Maxamed Ibrahim ayaa hay'adaha gargaarka ka codsaday in gargaar gaarsiiyaan dhulkii dhawaan laga wareegay xarakada al-shabaab waxaan filaynay markii cadawga meesha laga xoreeyo inuu caalamku dhulka ka qaado shacabka caalamku inuu dhulka qaado caalamkan la bahdilay ee baabaay dhaqaale ka dhamaaday aqliga ka dhamaaday wax walba lagu sameeyay waxaan islahayn caalamku xoreyntu daba soconaya hay'adaha samafalka xoreyntii daba soconayaan meeshii nimanka gacantooda laga bixiyaba inay bulshadu neefsanayso oo wax loo qabanayaan u maleynayna taasna gaabis baa ku jira waxaan isleenahay soo jeedin lahayn hay'adaha ku shaqale iyo hay'adaha samafalka inay wax ka bedelaan haddii aan tusaale yar soo qaato magaalo laga qabtay nimankaas raashin baan dabcanay in laga helo magaalo weyn oo degan baa waxaa laga helay 75 kilo bariisa wax kale waa laga waayay dhibaatada dadkaas waa la dareemi karaa in marka hay'adaha samafalka ay wax ka qabtaan oo dadka dhul ka qaadaan oo meeshii la xoreeyaba ay tagaan waa la tagi karaaye taas baan soo jeedinaynaa ururka Raas Kamboni ayaa waxa uu qayb ka yahay dagaalada ka socda deegaanada Jubbooyinka iyagoo ka babar dagaalamay ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ku meegaarka ee Soomaaliya Faysal Caseer Somali